السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وانا سلام نمد إسلام كا ملك استوجبتان halkan waxaan gabay kaga duubi doonaa walaalkay ama abwaanka Maxamed Amiin Maxamed gabaygan adiga sameeyay walaalana sameeyay sax dhacdadii ujeedadaan ka lahaana waxay ahayd madax kasta qof kasta oo madaxa oo dalkan Soomaaliland madaxweyne ka noqon doona sax in sifooyinkan ticda ku dhex jira aanu maxay ahayd ku sifoobin waan gartay hay'ashee bulshada inteeda kale waxay ula kacday maxaa la yiraahdaa de wax nin walba martii bugtaa isaga bilbasha bulshadu bay u taalaayo qofba meel buu u fasirto qofba meel markii dambe adigu dad way jiraanba maxay ahayd toy kulitixda laga dhex garan doonaayo ma raba inaan ku sii dheeraado sax marka ayadii aan bilaabo horta tixda waxa la yiraahdaa xil iyo eed baa la sida badan waa halkii mahmaadku oran jiray nin xil qaad sax qofka hadduu xil qaado inuu dulqaadkeeda yeesho sax ayaa muhiim moogti aad iyo intaas uu ka hadlaya sax marka waxay ku bilaabmaysaa sida tan hayee nabla bismillah nin xil qaadayo eed xambaaratee yay kula xumaan yaan lagugu xaman maalintay xun tahay niman talada xulan niman xoogga qaran xakamayn karayn nin dulqaad xuno xunshadu arkaba xaarka uga kicin nin xifaaltamoon xeeladayn aqoon markuu xaalku yahay xurguf iyo colaad marka intan ugu dhaxtaa nin xil qaadayo eed xambaaratee yay kula xumaan yaan lagugu xaman nin xigaalka iyo qaranka iyo xurmada u soo xoogsi tegay xilka uu hayiyo niman xoolihii kala xeeranayn nin qabiil ku xadaa isagiyo xadrada xulafada ahaa mata xuukadiyo xabagaha gurtoo oon xadaaradayn nin xil qaadayo eed xambaaratay yay kula xumaan yaan lagugu xaman nin xukuumaddii xagaldaaciyo xirfadaan lahayn nin xatooye iyo midaan xeerku qaban xusulduubu wada xuquuq loo sinaa nin u kala xisho samaxoorayo xubbi iyo kalgacal xaadir yiri qabiil nin xil qaadayo eed xambaaratay yaan lagugu xaman yay kula xumaan nimaan xaajo hore xiska aan ku hay nimaan aragti xigan xaashiyaha ku qoran xoodaamo badan oon xasarad lahayn nin xawaarihii xiisihiisu yahay inuu xintamo nin xigtii uu jaqiyo nimaan xaas haween xawalay u turin gabaygu intaas ku dhammaanayaa nin xil qaadayo xambaaratay kula xumaan yaan lagugu xamo weeye marka tixdu inahaasay maxay ahayd ku egtay ujeedadeenu waxay ahayd sifooyinka wanaagsan iyo sifooyinka xun kala saaristooda laakiin sifooyinkan waa sifooyin mar walba ninka maxay ahayd madaxda ah horjoogaha ah bulshada hogaaminaya dulqaad looga baahan yahay iyo maxaa la yiraahdaa bulshada dhan uu hogaaminayo de inuu isu garto inuu madaxweyne yahay astaamihii leader code hogaamiye ninka la yiraahdo yani inay sifooyinkaas oo dhan ka reeban yihiin bedelkeedana kuwa ka soo horjeeda laga helo intaas un baahay wada arkaysaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dad badan wax ku qaadan doonaan gabayga Maxamed Amiin insha Allah dadkan waxaan ka codsanayaa inay gabaygan baraha bulshada si bilaa waxaan ku leeyahay bilaa tarxaana ugu isku gaarsiiyaan aad baad salaamantiin aan salaaminaa anigii abwaanku